السلام عليكم ورحمة الله وبركاته casharkan waxaan ku baran doonaa variables waxay yihiin python marka la isticmaalayo marka variable waxa weeyaan waa memory location waa meel aad ku kaydsanayso macluumaadka marka waa reserved memory location to store values and in other words it gives data to the computer for processing markaad computerka data aad rabto inaad ku save garaysato ama aad rabto inaad process garayso aad ku kaydsato waxaad ku save garaynaysaa marka variable waxaa muhiim in la ogaado variable data type ayuu leeyahay and variable data type kala duwan ayaa jira oon baran doono numbers list tuple strings dictionary waxaas dhan waan baran doonaa laakiin sorta bal aynu fahanno variable wuxuu yahay okay iminka marka Visual Studio Code-kii ayaa waxaan furanayaa folder aan ku qoro code-ka for Python folder kaas ayaan markaa ku qoranayaa code-ka folderkan waxaa ku jira file test.py ayaa ku jira file ah filekaas ayaan ku qoranaynaa marka variable-ka waa inaad magac u bixiso marka hore matalan waxaan rabaa inaan save gareeyo magaca qof waa inaan dhahaa name is equal to iyo magaciyo markaa quotes ku dhex jira Ahmed marka hadda variable namekiisu ama identifier waxa la dhaho waa name value-giina waa Ahmed marka data type-ka variable haddaynu rabno inaan ogaano Python-ka waxaad oran kartaa print type name haddaynu ogaano name type-kiisu wuxuu yahay waxaa inoo sheegi doona command-kaas waxa weeyaan waa str oo u taagan string gooni baynu baran doonaa laakiin waxaa muhiim ah haddaynan fahanno variable haddaynu ku save garaysano matalan age da'dii 21 oon isna markaa eegno type-kii age-ka waxaad arki doontaa inuu inoo sheego inuu yahay integer int marka type waa integer waxaynu nidhi waa memory location meel computer ka mid ayaan ku save garaynay haddii aynu rabno inaan ogaano meeshaas aynu ku save garaynay waxaan isticmaali karnaa command kaloo la dhaho print id name marka computer kasta number gooniya soo bixi doona laakiin sadda numberka dheer wuxuu inoo sheegayaa locationka uu ku save gareeyey variable-kaas marka variables kala duwan ayaa jira waxaa jira number waxaa jira float haddaynu dhahno matalan price is equal to 12.5 kan wuxuu noqonayaa markaa type-ka haddaynu eegno wuxuu inoo sheegaya inuu yahay markaa float waa number wata decimal point haddaynu run garayno halkaa waxaa inoo soo baxay inuu yahay float halkaa waxaan ku ogaanaynaa markaa variable-ku inuu leeyahay magac ama identifier iyo value matalan Ahmed iyo type matalan string iyo memory location oo ah numberka dheer oo aanu ku ogaan karno markaanu isticmaalno command-ka id-ga iminkana waxaanu baranaynaa sidaynu qofka u weydiin lahayn information oon markaa informationkaas u process garayn lahayn ama u print garayn lahayn okay hadda waxaan rabnaa marka inaan qofkii isticmaalayay programka inaynu weydiino magaciisa koowaad iyo ka labaad first name iyo last name marka waxaan odhanaynaa first name is equal to marka iminka command-kaas input ayaynu isticmaalaynaa inputka gudihiisa waxaad ku qoraysaa macluumaad qofka ayaad u sharaxaysaa wixii aad weydiinayso si uu u fahmo marka waxaynu leenahay enter first name okay command-kaas marka wuxuu sugayaa qofku ilaa uu ka gelinayo first name-ka markuu geliyo ayaanu markaa print garaynaynaa marka haddaynu dhahno print first name halkana aynu clean garayno okay haddaynu run garayno marka programka waxaad arkaysaa inuu sugayo inaynu gelino first name-kii
okay marka meesha first name ka hadaynu dhahno Ahmed ayuu noo print garaynaya hadaynu hadda run garayno oo magac kale aynu gelino Ali ayuu print garaynaya markaad rabto inaad qofka weydiiso macluumaad waxaad isticmaalaysaa commandkaas input okay waxaynu weydiinaynaa oo kale last name kalitaynu soo koobiyeysanno aynu markaa u bedelaynaa last name input enter last name kabacdina waxaan print garaynaynaa last namekii okay iminka markaa haddaynu clean garayno on programka run garayno waxaynu weydiinaa first namekii last namekii labadii buu print garayay markaas haddaan rabno inaan da'da weydiino oo kale waxaynu odhanaynaa sidoo kale age is equal to input enter your age okay markaasaan print garaynaa agekii iminka marka saddex macluumaad ayaynu weydiinay first name last name age intiiba macluumaadka dhan waan printer garaynay okay marka mar haddaynu fahnay macluumaadka sidii loo weydiinayay userka ama qofka isticmaalayay programka waxaynu baranaynaa sidaynu u format garaynaynaa macluumaadka aynu haysano okay iminka waxaanu baranaynaa marka formattingkii sidii loo format garaynayay macluumaadkii aynu haysanay matalan waxaynu haysanaa product matalan book waxaynu haysanaa price marka waxaan rabnaa inaynu printer garayno matalan the price of book is 12.5 inagoo isticmaalayno variableska waxaynu odhanaynaa markaa print habka ugu horeeyan baranayno waxa weeyaan matalan the price comma ama the price of kabacdi variablekii book waxaanu kasoo qaadanaynaa product haddana aynu dhahnaa is pricekii baan soo qaadanaynaa markaa waxaanu isticmaalnay mar walba common u dhexaysiinay the price of product markaa book buu noqonayaa is pricekiina wuxuu noqonayaa markaa 12.5 then dhahno run the price of book is 12.5 halkaa book haddaynu ku bedelna wax kale table wuxuu noqonayaa the price of table is 12.5 laakiinse habkan waa saad aragtaan comma badan ayaa u dhexeeya iyo quotes hab ka fudud ayaa jira habkaas oo ah marka inaad isticmaasho formatting waxaynu odhanaynaa print f kaas ayaanu isticmaalaynaa u taagan formatting kabacdina intii aynu qorayno oo kale the price of meeshii marka productiga ahayd curly bracekaas ayaynu gelinaynaa oo variablekii ah product is pricekiina waxaynu gelinaynaa isagana curly braces okay marka kan haddaynu imika comment garayno oo kan keliya run garayno isla resultiga ayaa noo soo baxaya the price of table is 12.5 marka habkana ka fudud waxaa muhiim inaydaan iloobin f taas formattingkaas haddaynu f taa ka tagno
marka wuxuu qorayaa productigii iyo pricekii variablekii ma soo qaadanayo valuegii variableka okay formatting haddaad fahamteen waxaa la doonayaa inaad challengekan ka shaqayso marka intaad video yara joojisaan isku day inaad marka hore idinku shaqaysaan waxaan rabnaa inaan macluumaad ka soo qaadno ardayga magaciisu waxa weeyaan Axmed Cali da'diisuna waa 20 years old marka waxaa la rabaa inaad print garaysaan Axmed is 20 years old waa inaad marka hore magaca hore weydiisaan first name ka bacdi last name ka bacdi age markaad weydiisaan inaad print garaysaan Axmed is 20 years old marka joojiya videoga isku day inaad samaysaan ka bacdi waxaan tusi doonaa solutionka okay solutionka marka waxa weeyaan ardayga marka hore magaciisa iyo weydiina first name input enter your first name ka bacdi waxaan weydiinaynaa intaynu isla kanu soo kobiyso last nameka last name enter your last name waxaan kaloo weydiinaynaa da'da enter your age inta macluumaadka aan u baahnayn markaa waynu haysanaa waxaa inoo hadhay inaynu format garayno waxaan leenahay print hayloobina efta formattingka ka bacdi markaa first namekii halkan aan gashanaynaa first name halkaa waxaan ku haysanaa magacii hore last name is agekii baan halkaa gashanaynaa years marka haddaynu ran garayno magaca first namekii last namekii aynu soo qaadanaynaa iyo agekii okay let's run aan ran garayno codeka first namekii buu weydiiyey Axmed last namekii Cali agekii 21 marka wuxuu print gareeyey Axmed Cali is 21 years old hadaynu iminka ran garayno magaca kaleynu gelin karnaa first name Maryam last name Axmed 20 years old ka bacdi wuxuu print garaynayaa Maryam is 20 years old casharka halkaasaan ku joojinaynaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu